سبحان الله والحمد لله سبحان الله لله به تعلو الدعوات وتحل على الناس البركات. نبي الله موسى عليه السلام ayaa ilaahay ku yidhi kelmad aan kugu barya isii markaasaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku yidhi yaa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah markaa buu nebi muuse yidhi ilaahu kelmaddan addoommahaaga wan wanaagsan way yidhaahdiinatu aniga ii gaaraan ku weydiistaa isii markaasaa ilaahay casa wajalla waxauu ku yidhi muusow toddobada ceriga toddobada dhul haddii miisaanka kafad la saaro laa ilaaha ila allahna kafadda kale la saaro laa ilaaha ila allah ba ka culus baa ilaahay yidhi kelmaddaasaa dadka muslimiinta walaala ka dhigtay waa kelmadda nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ayaa iga aqbalaya oo iga qaadanaya kelmaddii adeerkay abaa-aalib aan u bandhigay ee adeerkay uu igu soo celiyey oo ku nabadgeli buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam kelmadda kalimatu taqwa kalimatu likhlaas laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah qofka kelmaddaa yidhaahda walaalayaal waa qof ilaahay agtiisa qiimalo weeyaan waa qof ilaahay jecel yahay baa kelmaddaa yidhaahdaa waa kelmadda nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa afdalu maa qultu ana wannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah yowma carafa nebigu isagoo jooga waa maalinta carafe ee dadka kalena ay sooman yihiin xujayduna buurta carafa dul joogaan ayuu nebigu yidhi kelmad aan ku qowlno aniga iyo nebiyadii iga horreeyey waxaa ugu fadli badnayd kelmadda laa ilaaha illa allah kelimadda tawxiidka waa kelmadda nebigeennu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka markuu dhimanayo yidhaahda laa ilaaha ila allah ereygiisa ugu dambeeya uu noqdo laa ilaaha illa allah jannuu galay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kelmaddaasi waa kelmad aada u qiimo badan weeyaan cirka iyo dhulka iyo makhluuqa adduunyada ku nool oo dhan wuxuu ku taagan yahay waa diinta islaamka laa taquuma saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allahu allah saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi arlada korkeeda inta laga leeyahay allah 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 saacadda qiyaamadu iman maysa buu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam kelmaddani waa ruuxdii caalamka weeyaan sida bini aadanka jidhkiisa ruuxda ugu dhaqdhaqaaqaayo ayaa waxaa adduunka bini aadan shaqaynaya ee kalahaya ee socda ee dhisaya ee dhaqaya ee dhalaya ee dhimanaya ee dhoofaya ee duulaya ee soconaya ee waxaa makhluuqaad adduunyada socdo o dhan intay joogaan waa intee waa inta qof muslima adduunka dusheeda uu ka joogo weeyaan marka haddii qof muslima adduunka laga waayo waxaad ogaataa saacadda qiyaamada dhacday ogaada marka islaamnimada ilaahay baa inagu deeqay nicmad ka weyna diinta islaamka ma jirta ogaada nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa dadkii adduunka soo maray oo dhan kii ugu maal badnaa ee ugu barwaaqada badnaa ee ugu nicmada badnaa ayaa banka qiyaama la keeni buu nebigu yidhi isagoo laakiin ahla naara walciyaadu billah hal mar keliya naarta la gelin deedna waa laga soo qaban waa la weydiinoo lagu odhan doonaa weligaa iyo allaha intaad adduunka soo joogtay badhaadhe iyo barwaaqo maaragtaane ma la kulantay waana adduunka bashar wixii soo maray kii ugu nicmada badnaa weeyaan marka intuu ilaahay ku dhaarta ayuu leeyahay anu maba arag buu leeyahay haba yaraatee nicmad iyo barwaaqo maba arag buu leeyahay ninkaas dadna markaasuu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam dadka adduunka soo maray kii ugu saboolsanaaye ugu nolosha hooseeyey kaasaa la keeni buu nebigu yidhi banka qiyaama isagoo ahluljanna hal mar keliya ayaa jannada la gelin oo jannada la gelin ama la tusin oo laga soo qaban oo la odhan doonaa intaad adduunyada ku nooleed mashaakil iyo dhib iyo rafaad iyo cidhiidhi ma soo martay markaasuu leeyahay weligaya allah anu dhibaato maba arag buu leeyahay waxaa la yidhi kaa adduunyada ugu nicmad badnaa ee adduunka soo maray nicmaddii adduunkao dhan waa la siiyey laakiin nicmadda islaamnimada ka maqnayd noloshiisa kan kalena faqiir buu ahaa dadka adduunka soo maray kii ugu saboolsanaa buu ahaa oo waxba lama siinin laakiin wuxuu la dhintay islaamnimu la dhintay ogow marka noloshan adduunyadu walaalayaal waxay qiimo ku fadhidaan haba yaraatee male noloshan adduunyadan waa layna keenay qofka waxaa la keenay isagoo qatan oo qaawan maalintuu ka baxaayana qofka adduunka waxuu ka baxaa kafan baa lagaga qaadaa kafan nin oday la odhan jiray xamuudi allah u naxariistee masaajidka taariikhiga ee jabuuti caasimadda santarka magaalada ku yaalla odaygii dhisay
nin xadramiyo oo yamaniya ayuu ahaayo maalqabeena ilaa imika masaajidkiisa sidii uu dhisay lagamana bedelin aqalladii waqfiga ula baxayna waqfiga waa u shaqeeyaa taqriiban malaha 80 sano ilaa qarni in ku dhowna ninka uu sii muutan yahay maalintuu dhimanaya wuxuu kula dardarmay dadkii dhaqaya meydkiisa gacmaha inta ay banaanay buu hayga xidhine markaasaa lagu yiri maxaad uga jeedaa oo gacanta inta ay banaanay aad maxaad uga jeedaa wuxuu dadka caamada ee qaafiliinta ee nolosha adduunyada xaqiiqo moodaya ayaa tusinayaa buu adduunka inaan waxba laga qaadan adduunka wax waa laga qaataa laakiin waxa laga qaataa waa amalka laga qaataa adduunka ubadka lagama qaato qabiilna lagama qaato masab lagama qaato dhaqaale lagama qaato aqalladaada iyo meheradaha iyo adduunyadaadii lagama qaato adduunka waxa laga qaataa waa amalkaasi laba mid buu noqonayaa ima mid wanaagsan oo qofku maaragtaane uu ku liibaano aakhirada uu ku liibaano ima mid xun buu noqonayaa amalkaasi oo qofkaasi aakhiradiisu ay ku xumaato annaasu niyaamun waidaa maatuu intabahu dadku way hurdaan maanta baa la yidhi qof walba markuu dhinto hurdada ka kici doonaa waa meesha soomaalidu ay tidhaahdo qofka waxa soo socda aanan garan waxa jooga ma garto garasho la'aanta maanta dad badan oo muslimiina allahii abuuray ay garan waayeen aakhirada u socdaan weynigeedana ay garan waayeen ayaa keentay qofkani inuu noqdo qof caasi oo bilaa salaada qof caaqil waalidayn inuu noqdo waxa keentay ilaahay aakhiradii buu garan waayey qofku inuu dulmi la yimaado waxa keentay allahii abuuray aakhiradu ayuu garan waayey qofku inuu maaragtaane beenaala noqdo waxa keentay allahii abuuray aakhiradiibu ku xisaabtamayn qofku xaaraan cuno inuu noqdo waxa keentay allahii abuuray aakhiradu ku xisaabtamayn hadduu qofku ilaahay xasuusan yahay uu aakhiradana uu xasuusan yahay ilaahay xaqiisana ma dayaceen xaqa bini aadamkana qofkaasi kuma ciyaareen waa meesha nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ittaqi illaaha xayumaa kunt meeshaa doontaba joogo waxaad ahaataa qof ilaahay ka baqayo ilaahay ka cabsoonaya laanna ilaahay caza wajalla uu ku arkaya uu ku maqlaya uu kula jiraa mar walba haddaad cirka tagtana ilaahay cirka kagama dhuumanaysid haddaad dhulka gashadna ilaahay dhulka kagama dhuumanaysid ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ina arkaa uu ina maqlaa nin dhallinyaro ah ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi sheekh ibraahimow ee nin dhallinyaro anahoo dembigaygaa iska dhacdhace oo macsiyana ma dayn karee bal maxaa sameeyaa buu yidhi markaa buu yidhi dee maxaa samayn lahayd buu yidhi markaa ma qiil baad raadinaysaa inaan ku helno marka aan ku nidhaahno ilaahay ku caas qiil laguma hayee ilaahay ku abuuray ha caasina ilaahay u soo noqo toobadkeen buu yidhi dee ma karayoo dhallinyaraan ahayoo anoo dembigii ku jiro umbaan isarkayaa buu yidhi bal waa hagaagee dee mid kaleaan kuugu daraya haddaad ilaahay aad tidhi cisyaankiisa ma dayn karaayo iskaba caasi ilaahay oo wuxuu ku yidhi caasiyo laakiin markaad ilaahay aad caasinayso meeluusan isagu kugu arkayn ku dhuumo ilaahay ku soo caasi dee ma dhici karta buu yidhi meel ilaahay lagaga dhuuman kara adduunka dee ma jirto bal waa hagaaga ilaahay caasi buu yidhi haddana arsaaqadan iyo biyahan aad cabbaysa isagaa le iyo hawadan iyo oksijiinkane waxaan ilaahay uu leeyahay u dhaafo wax kaloo adu aad ku noolaata bal doondoono deedna markaa ilaahay cisyaankiisa u xorow dee markaasuu yidhi ma dhici karayso haddana taas wuxuu dhulkan aad dul joogto eed ilaahay ku dul caasinaysa isagaa samayso oo isagaa iskale dhulka ilaahay uga kaco dhulka dhul aan ahayn tagoo ilaahay ku soo caasi dee ma jirtay buu yidhi markaas dee walaalayaal waxaan ka wadnaa qisadaan u soo qaatay waa maxay adduunkan ilaahay isagayna keenay maalintii adiga lagu keenaya ilaahay cidna kalama tashan maalinta qofka adduunyada uu ka baxayana ilaahay cidna kala tashan maayo waxa raxmadda ilaahay ka mida oo nicamta ilaahay ka mida baa la yidhi taariikhda dhimashada ilaahay waa inoo qariyey bal ka warrama nolosha adduunku sidee noqon lahayd haddii ilmihii noo dhashaba uu la dhalan lahaa taariikhda dhimashada isagoo wejigiisa inta ay kaga qoran tahay noloshu xarakaad ma yeelateen macaanna ma yeelateen dhadhan ma yeelateen haddii ilmo kastoo dhalanaya uu dhalan lahaa bal ka warrama isagoo taariikhda dhimashaduna ay jabhadiisa wejiga halkaa kaga qoran tahay kana masaxmay markii layska soo horbaxon baa la odhan lahaa warkan 2 sana u hadhay dhimashadiisa warkan 4 sana u hadhay war hebel wiil bay ku curatay islaantii bal ka warran buu odhan lahaa markuu inanu adeer u yahay arko adeer wiil bay curato dee mabruuk wiil iyo caano markaasuu odhan lahaa dee maxaa mabruuga 2025 bisha labaad buu dhimanayaa baa ku qoranay buu odhan lahaa noloshu macaan ma yeelan lahayd markaa dee ma yeelateen waxaan iminka aqallada aan ku dhisanayno een xoolaha ku dhaqanayno ee beeraha ku falanayno ee guur iyo maaragtaane wax walba uga fikirayno waa taariikhda dhimashada laynaga qariyey weeyaan laakiin waxaad ogaataa qof walba adduunyada uu dhiman low kaanat iddunya taduumu liahliha
lakaana rasuula allahi xayan wa baaqiya haddii adduunyada cid ku waaryi lahaa uu joogi lahaa dee nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ku waaryi lahaa adduunyadan weliba innaka dhimashadeennu waa ijbaari inaad adigu dhimato lagaa tala gelin maayo laakiin nebiyada calayhim asalaam dhimashadoodu khiyaari bay ahayd oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam jibriil baa u yimid oo ku yidhi waxa ilaahay ku leeyahay waxa kala dooro lagu leeyahay oo lagu leeyahay kala door bido inaad adduunyada iska sii joogto iyo in xagga ilaahay laguu qaado inna lilaahi cabdan baa nebigu ilaahay addoon waxa uu leeyahay addoommihiisa ka mid a oo la dooransiiyo lagu yidhi inuu adduunyada ku sii joogu baaqi ahaada iyo in xagga ilaahay loo qaado markaa buu nebigu yidhi addoonkii wuxuu doortay ilaahay xaggiisa in loo qaado ayuu doortay abibakr sidiiq radia allaahu canhu oo hadalkaa fahmay oo fahmad cajiiba lahaa ayaa ooyoo yidhi nufdika biaabaa'ina wa ummahaatina yaa rasuula allah yaa rasuula allah hooyooyinkayo iyo awlaaddayada iyo aabbayaashayaan kugu fidaynaynaaye noo noolow marka cumar binu khadaab uu ag fadhiyey baa ka yidhi abuubakarow waxanaad adigu aad la ooyay si annaku aan la ooyayn waa maxay muxuu yahay markaasuu abuubakar wuxuu yidhi yaa cumar maad fahmayn addoonka nebigu uu ka sheekaynaya cid kale hamoodina waa isaga ajashiisii baa soo dhowaato kala dooraa nebiga lagu yidhi leanna nebigu calayhi salaatu wasalaam aakhirada ayuu doortay innaga maanta haddii malakulmawd unoo iman lahaa uuna odhan lahaa intiina halkaa joogta inaan adduunyada iskaga noolaataan iyo inaan imika naftayna iga qaadon jannayna geliyo midkee dooran lahayn bal ka warrama hadduu weliba yidhahda malagaasi janno ayaa laynii ballan qaado albaabka jannada hore uga galaysaa ee hadda inaan nafta ka qaado ayaa u diyaara maxaan odhan lahayn keena inoogu qalbi fiican ee noogu diin fiican ee noogu alla kacabsi fiican laga yaabaa inuu yidhahdo waan soo dardaarmiyo yariikaadi kuweenna kalena dhimasho diyaarba uma nihinba maanta marka innaga dhimashadeennu waa ijbaari waa laynagu qasbay laakiin dhimashada nebiyadu ay dhimanayeen ikhtiyaari bay ahayd xataa nebi ibraahim calayhi asalaam waa loo soo diray malakalmawdka oo layidhi kala dooro inaan ku daynayay xagga ilaah inaan kuu qaadno markaasuu ibraahim ku yidhi ma taariikhdaydii baa iga dhammaato ma cimrigii baa dhammaaday haa cimrigaaga uu dhammaaday haddeetoole markaa dee su'aal baan qabaa su-aashaan qaba waa maxay ku noqon rabbigay oo waxaad ku tidhaahdaa intee lagu arkay saaxiibkiisa iska dila halkee lagu arkay ila nebi ibraahim waa kii ilaahay ugu magac daray ilaahay uu yidhi waatakhada allaahu ibraahiima khaliila ibraahim calayhi asalaam khaliil baa ilaahay ka dhigtay khaliil macnaheegu waa maxay saaxiib malagii baa soo noqdoo ku yidhi jibriil ibraahimow rabbigaa uu ku salaamayaa waxa uuna kaa soo yidhi halkee lagu arkay saaxiibkii inuu la kulmay iska diidan marka mu'minku markuu adduunyada ka dhimanaayo ma aha waxa uu ka tegaaya daartan janno inuu ka baxaya hamoodina mu'minku jannadii runta ahayd buu tegayaa marka innaga dhimashadeennu waa ijbaari waa laynagu qasbay faqrigu waa ijbaari waa laynagu qasbay abaartaannu haysata waa kaasoo waa wax ilaahay xaggiisa nagaga timiday laakiin dunuubteenna iyo acmaasheenna ayaa u sababa sidaa darteed qofka muslimku waa inuu fahmaa war adduunkan innaku ma lihin innaga meeshaan u soconno waa aakhiro waxaan ku badbaadaynaana waa diintuna laba tiir bay ku taagan tahay laba tiir tiirka koowaad waxa weeyaan qof walba waa inuu gartaa ilaahay abuuray xaqa uu kugu leeyahay garo tiirka labaad waxa weeyaan addoommaha ilaahay adduunka dusheeda kugula nool xuquuqdoodana waa inaad iska ilaalisaa haddaad tidhaahda xaqa ilaahay baan ilaalin oo salaaddu waa xaqi ilaahay waan ilaalin soonku waa xaqi ilaahay waan ilaalin zakadu waa xaqi ilaahay oo waan bixin xajku waa xaqi ilaahay oo waan tegi nebigeennaa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi atadruuna man ilmuflis qofka caydha miyaad taqaanaan buu nebigu yidhi markaabay saxaabadu yidhahdeen qofka caydha annagu waxaan u naqaannaa waa qofka shilin iyo lacag aanan haysan alaabna aanan haysan markaa buu nebigu yidhi qofka caydhu waxa weeyaan waa qof banka qiyaama la soo joojin doono salaaddii buu wataa zakadii buu wataa soonkii buu wataa xajkii buu wataa acmaal waaweyn oo khayra ayuu adduunka ku soo shaqeeyey laakiin dad fara badan baa hortiisa lasoo tumi doonaayo odhan doonaa mid waxaa la yidhi uu dhacay mid uu xantay mid uu dilay mid xoolihiisii buu ka qaatay mid waxa uu lahayn buu ku sheegay waxaa la odhan doonaa khayrka isagu uu soo shaqaystay ka soo qaadoo dadka u qaybiy oo jannada ku geliya haddana malaa'igtu waxay odhan doonaan yaa rabbi weliba dad kala hadhay oo addoonka maaragtaani xaq ku sheeganaya markaasaa la odhan doonaa ka soo qaada dunuubta iyaku ay wataan isagaa madaxa u saaroo naarta ku tuura la odhan doonaa buu rasuulku yidhi khasaaruhu waa kaa weeyaan caydh haddaad maqasheen waa kaa waa qof adduunka dusheeda camalkii wanaagsanaa uu ka soo shaqaynayey dad kale ay jannada ku galeen isaguna dunuub dad kale ay soo shaqaysteen naarta isagii loogu tuuro uu naarta ku mutaystay marka diinteennu walaalayaal xuquuqullahna way ku amraysaa
xuquuqulcibaadna ilaali bay ku leedahay waa inaan labadaa xaq iska ilaalinaa xaqa ilaahay waxaan ku ilaalinaynaa waa alla ka cabsiga weeyaan xuquuqda bini aadamkana waxaan ku ilaalinaynaa waa akhlaaqda wanaagsan qofka muslimka waa inuu ahaado qof dabeecad wanaagsan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim baa nebigeenna ilaahay yidhi markaa buu nebigu madiine markuu yimiday erayadii ugu horraysay nebigeennu masjidkiisa uu ka jeediyey wuxuu ahaa hadalla dadka muslimiinta qulubtooda midaynaya oo muslimka walaalo ka dhigaya buu nebigu ummadda u sheego wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow afshu salaama salaanta dhexdiinna faafiya wa atcimu tacaama dadka cuntaysiiyo quudiya wasilu larxaama raximkana xidhiidhiya wasalluu billeyli waannaasu niyaam habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo salaataleylka tukada jannada rabbigiin nabad baad ku galaysaana buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ereygii ugu horreeyey khudbaddii ugu horraysay nebigu masjidkiisa markuu soo fadhiistay ee saxaabadu ay ku soo urureen reer madiina ee talaca albadru calayna ay ku soo dhoweeyeen ayuu nebigu axaadiistaasu u sheegay waa axaadiis nuuceeya waa axaadiis ummadda midnimadeeda dhisaysa midnimadeeda salaanta faafiya maxay ka dhigan tahay salaanta markay muslimiintu isla dhex maraan jacaylaa dhexdooda ka abuurmaysa jacaylo waa isjeclaanayaan walaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum baa nebigu yidhi camal haddaad la timaadaan aad isku jeclaanaysaan ma inii sheegaa salaanta dhexdiina faafiya buu nebigu yidhi salaan muslimku waa muslim muslimka waxaa laga doona salaanta inuu faafiyo masaakiinta quudiya buu nebigu yidhi xadiiskaa markuu nebigu reer madiina u sheegay hal qof oo baahan oo miskiin oo sidaa leh ayaa magaalada madiina laga waayey muslimku waxa uu noqday muslim naftiisa u nool ma noqone muslim wuxuu noqday dan ummadda u nool oo ummadda u adeegaaya oo ummadda u shaqaynaaya oo naftiisa aan ka fikirayne bal walaalihiisa muslimiinta hadduu faraxsan yahayna way la farxayaan hadduu murugoonayana way la murugoonayaan diinteenna macaan baa sidaa ayna faraysa walaalayaal marka waxaan isku boorinaynaa diintaasi way noo qoran tahay axaadiistaa culimmadeenna horaad uga maqasheene laakiin waa wadakir fa ina dikraa tanfacu almu'miniin weeyaane waana maalin jumco weeyaan cibaadaduna kolle way nagu kulushahe han ku dadaalno maaragtaane salaadda han ku dadaalno oo khayrka han ku dadaalno insha allah sow diyaar ma nihin insha allah